waxaa la yidhaahaa Dayr oo Faarax Maxamed waxaan ahay nin shacaba oo haddii Ilaahay ka dhigayo wax xila aan u hayn ummadda mid isagu mas'uuliyadiisa isku saaran mooyaane waxa halkan aan isugu keen yeeray waxa weeyaan qofka bini aadamkii waxa uu ilaashado ama uu difaacdo ugu weyn waxa weeye sharaftiisa waxa jirta mudooyinka laga joogo sanad iyo malaabil ayaan halkan ka tegay anigoo xanuun kaga baxay waxa iga daba yimi eedayn badan iyo xumaan badan iyo ceebayn badan baa iga daba timi anigoo haddii Ilaahay ka dhigayo sariirta Allah waxa jira imanka dunida meelo la sameystay oo golayaal iyo website iyo la sameystay oo ay moodo in family wal iyo reer waliba oo sameystay kuwaas iyo anigoo sariirta jiifa igu timi hadalkii iyo xumaantii la igu sameeyay aniguna aan soo filayo inaan weli cid wax u dhimin oo wax yeelin waxa markaa jirtay ay sababtaas igu qabsatay ugu horeyn wax qabad deegaankii aan ka soo jeeday oo haddii Ilaahay ka dhigayo dhibaatooyin badan oo waqtiyadii dagaaladii ay gaadheen haddii Ilaahay ka dhigayo dib u dhac badanina uu ka jiray oo anigoo xisbiga kulmiye dadkii shakhsiyaadkii ugu horeeyay aan ka mid ahaa xilli anigan ka haynin aan macruuf la noqday dad badan oo haddii Ilaahay ka dhigayo dawladda ka mid ah aan sida aawadeed wixii haddii Ilaahay ka dhigayo aan saaho waad ka dhameyn karaysaa xafiisyada ama wixii madaxweynuhu uu dhagax dhigo haddii Ilaahay ka dhigayo mashaariic aan dabagal ku sameeyo sababta aan ugu sameeyo waxa weeye wixii uu madaxweynuhu dhagax dhigo aan la dabagelin xafiis walba waraaqdu way iska oolaysaa kama baxdaay waxa markaa igu kacay dadkii ka soo jeeday deegaanka haddii Ilaahay ka dhigayo ama siyaasi ah sheegto ama laga soo doorto ama haddii Ilaahay ka dhigayo xilal hayeen oo u arkay inaan iyaga dhibaato ku noqday ama aan waxyeello u geystay sida aweedna jalas noqday waxa yaabaha aan haddii Ilaahay ka dhigayo daba socdo waxa kale oo jirtay riig baa ka mid ahaa mashaariicda riigaas oo madaxweynuhu dhagax dhigay waxa jirtay markii hore in madaxweynuhu uu wasaaradda u gudbiyay hay'ad baa tiri waxaan qodaynaa ceel 250 ceelka la qodayna 450 buu ahaa hay'adii waxay sheegtay inay 250 wax ka badan qodi karin cidna la sheer garaynayn madaxweynuhu wuxuu aan ku darayaa inta ka dhiman ana bixinaya way diideen anigu markaa madaxweynaha waan hor fadhiistay haddii Ilaahay ka dhigayo waxaan u sheegay in wixii haddii Ilaahay ka dhigayo uu amray ee uu dhagax dhigay inay diiday hay'adii wasaaraddiina way fadhiday meesha markaa wasaaraddiina sidii bay u sheegtay maxaa la yeelay uu yiri xirsi ayaa fadhiyay meesha xirsi markaa wuxuu u sheegay inuu ceelkan madaxweyne aad dhagax dhigtay oo loona baahan yahay inaad dhamaystirto sabab kasta aan ku dhamaystiray madaxweynuhu wuxuu u amray wasiirkii madaxtooyada oo xirsi ahaa markaa isaguna wuxuu amray wasaaradda oo uu yiri soo birgareeyeen u yaraan 3 riig waxa jirtay hadaba nin family isna kamida oo riig watay sawirkiisu waa kan riiga sawirkiisa Dubai buu iga soo diray isagoo la taagan waa wasiirada dawladda maaliyadda imka joogayaan mushkiladan oo dhanina waxay ka abuurantay halkan ninkan haddii Ilaahay ka dhigayo wuxuu yiri oo uu yimi markaa riigaasan soo diraya kun buu qodaa kunka uu qodo ceelashaas dhaadheer oo dhan doonayaan inaan ku qodno haddii Ilaahay ka dhigayo waxaan kula heshiiyey boqolkiiba 10% inaan yeelano ceel kasta oo qodo marka kontraagyada u raadi cashuur dhaafna u samee arrintii 308 iyo 30 ayuu
contract qortay waa tii isbedeshay markaa tii hore ahayd ee hadii la yiraahdo hay'addu ay bixinaysay badh markii dambe way ku soo noqotay markii wasaaradda loo diray waxa la yiri ilaa lacag baan bixinaynaa imka hay'adda qormayse ala soo bargaray wasaaraddii waxay qaadatay rii kale oo kala midasay noo sheegeen ayay qaadatay contract-giisina waa kan hay'adda wasaaradda ku qoran wax magac aan ku leeyahay ma jirto waxay u qaateen saaxiibo dilaal jeceli inaan anigu wixii ay markii hore kula heshiiyeen anigu aan cidla ula baydhay oo cid kale kula heshiiyey xanuunkii aawadii oo ay la adeegsadeen iyo riigii oo ay doono wax ka hor yimiba aan sidii la doonayay u shaqaynin waxa dhacday in aniga la igu eedeeyo oo dawladda la geliyo riig kharaaba ayuu geeyay contract-gana isaga qaatay waxaan cadeynayaa horta markaa inaan meel walba la gaarsiiyay wasiir dawladda halkan ku haya clip uu leeyahay oo uu leeyahay wax warqada ana wasaaradda maaliyadda jooga wax warqada oo contract oo la haya ma jiro waxaan cadeynayaa horta contract waa kan aniguna kuma qoriyaan waxa ku qoran wasaaradda dawladdaas kala siisay shirkadaasaan aliya qorshe la yiraahdo halkan inoo dhaweeyaan Mansoor bay ku taala agteeda waxaan markaa idin sheegayaa in weerar lagu qaaday oo dilaalintii iyo ay iskaashadeen iyo dadkii ka soo jeeday degmada ee fadhiidka noqday ee wax qabadka fadhiidka ka noqday ay iskaashadeen ina gaarsiiyeen dadkii abaaruhu ku dhaceen ee dhibaatadu haysay ee biyo la'aantu haysay ee wax ma garadka ahaa ninka dayriyaha cunay riigiini riigaas sida la sheegay biyihii uu gaaray ee uu joolajku sheegay markii uu kaasankii ku guray waxay sheegeen in kaasankii xagga hoose uu ka dumay wuxuu riigaasi ninkii lahaa waxaan qodayaa ceel labaad oo aan lacag ka doonayn oo waliba aan meeshii bartay aan 45 casho ku dhamaynayo iyadoo la doonayo riigii laana lagu eedeeyo oo wax magaratadii oo dhan lagu yirsadaa dawladdiina laga dhaadhiciyay waxa uu la adeegsaday awood oo ninkaasi adeegsaday ay mushkiladu ka soo jeeday isagoo oo markaa hadii la ka dhigayo isagoo markaa wasiir teen noqdo awood yeeshay wuxuu awood ku isticmaalay riigii inaanu qodin uu yiri ma qodi karo wax magaratadii oo dhan uu ku kiciyo waa riig qaraaba marka hadduu qaraab yahay iyo hadduu wacan yahay dawladdu iyada ka mas'uul riig contract-gana iyada siisay injineeradeeda iyo joolajeedeedana soo cadeeyay inuu riig wacan ahaa sida noo sheegeen marka dawladdu iyada isu qabtaa wixii ka yimaada hadduu xun yahay iyo hadduu wacan yahay riig xun siiyeen laakiin waxaan cadeynayaa inaan anu wax shaqo ah oo aan ku leeyahay aan jirin kii contract siiyayna aanan ahayn hadii la yiraahdo kii riig lahaana aanan ahayn meel aan ka soo galo oo aan degaankayga ahayn oo inaan volunteer ugu shaqeeyo aan ahayn oo aan ka soo galo aanay jirin marka degaankii waxa ay u sameeyeen inay sucmadaydii ay waxaanan qabin lagu sameeyo leeyahay uu cunay dadka dhibaataysan dad dhibaataysan oo lagu daray wad garanaysan dhibaatadooda iyo mushkiladooda iyo hadalkooda marka taas ayaan doonayay inaan taas iska fogeeyo dawladdana waxaan leeyahay wala isu adeegsaday waxa gashay dawladdii in hadii la ka dhigayo madaxtooyadii la kala dhaweysto oo dad aan ma garanaysaa mas'uuliyad badan lahayn ay gudaha u galeen oo lagu colaatamay oo la isku ximinayo oo hadii la ka dhigayo lagu kala argoosanayo oo si xun lagu kala argoosanayo oo la isku eedeynayo oo hadii la ka dhigayo aad moodo in madaxtooyada gudaheeda ay dhibaatadu ka taalo wasiirka maaliyaddu waxay tagtay deegaanka waxaanay sheegtay oo ay tiri sida aan maqlay reer baldhigidinka isu qabe isweydiiyay rigiini taa ujeedadeeda aanu ma garanayo dawladda waxaan leeyahay hadii contract-aan idinka qaatay ama lacag aad ii dhiibteen anigu sababada ay igu dhiibteen garan maayee waxaad yeelaysaan gudaha la dhigo soona cadeeya sababta igu dhiibteen lacag sababtaan contract-ii siiseen hadaa hadalkaas la sheegay anigu halka kalibanku ayaan ku cadeynayo la leeyahay cid walba aan ku ayo ilaa madaxa u sareeya sida yiri la leeyahay oo kuwi family-giisa ay leeyihiin yan ku ayaa kalibo cadeyn hadii loo baahdana waan keenayaa wax kale oo ka badan
waxaan leeyahay anigu meelaan ka soo galaa ma jirto halka aad iga soo geliseen isweydiiye soona cadeeya oo ummadda oo cadeeya wixii aan garanaysaa aad ii dhiibteen aad leedin waa u dhiibinay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.